wafdi ballaaran oo hogaaminaya wasiirka diinta iyo awqaafta jamhuuriyadda Soomaaliya Sheekh Khaliil Cabdullaahi Axmed ayaa saaka kalinkii hore ka ambabaxay magaalada madaxda gobolka Waqooyi Bari ee Gaarisa ee dalka Kenya iyagoo u sii jeeda xerada qaxoontiga Ifato. wafdigan waxaa socdaalkooda ku horinaya gudoomiye ku-xigeenka golaha baarlamaanka waddanka Kenya Faarax Macalin Cabdullaahi Tabliiqi oo ah aqoon-yahanada isla markaana siyaasadda Soomaaliya ku nool waddanka Kenya, gudoomiyaha jaaliyadda Somaliland Yuusuf Cabdiraxmaan Taalo iyo mas'uuliyiin kale. haddaba wafdiga ayaa saaka baqnimadii waxay gaadheen xerada Ifato iyaguna halka ku qaybiyay deeqda horaanteedii uguna talagalay 6200 qoys. haddaba wafdigu laba maalmood ay ku sugnaayeen magaalada Nairobi ayaa waxa la soo xiriirayay mas'uuliyiin fara badan oo ka tirsan caalamka iyo safaarado, iyagoona u sheegayay inay talaabadan ay qaadanay tahay mid geesinimada isla markaana soo dhaweynaysa i'tiraaf iyo aqoonsi helidda dalka Somaliland. wafdiga oo ka koobnaa 5 xubnood oo dhammaantood ka hadlay hangarkii raashinka lagu soo rogay ayaa wasiirka diinta iyo awqaafta Sheekh Khaliil hadal kooban oo halka ka soo jeediyay waxa ugu mahadnaqay Faarax Macalin iyo Cabdullaahi Tabliiqi oo ku sheegay inaan la'aantood wax u suurta galeen. waxaa runtii halkan xusid mudan waalahna baahan intan wax weyn u tarimayso, laakiin waxay tahay niyadan la nimi iyo socdaalkaygu wuxuu muujinayaa walaaltinimo, waa risaalada aan xambaarsanahay oo waalahooda qiimeynaysa inaan isu taagno oo dhiidka naga dhaco oo soo lugayno imika Nairobi oo kaliya ilaa halka waxa soo soconay 500 kilomitir 500 kilomitir waliba aan diyaaradna ahayn, laakiin gaadiid iyo wado iyo raf iyo wado laamiba aan soo marnay. waxaan uga jeednaa inaan la qaybsano walaalahayo dhibaatadii ku dhacday ee gaadhay. sidoo kale dowladda Kenya oo uu hadda nagala represent gareynayo speakerka maxaan ku rahdaa baarlamaanka Kenya mudane Faarax Macalin oo runtii nin qayuura ah oo khayr badan. waxa runtii aanu leenahay aan ugu gudbinayna isaga mahadnaq aan u hayno dowladda Kenya sida fiican ay u hoos gareeyeen ama inoo soo dhaweeyeen dadkana Soomaaliyeedna u hayaan ee dhibaataysan. safiirka xajka Axmed Safiina ayaa isaguna hadal kooban halka ka jeediyay ugu dambeyntiina gudoomiye ku-xigeenka golaha baarlamaanka mudane Faarax Macalin ayaa hadal isugu jira mahadnaq iyo guubaaba u soo jeediyay shacbiga Somaliland iyo xukuumadoodaba. muxuu ahaay maanta waan ka saxanaynaa mas'uuliyadana soo saarneed, maanta waan ka saxanaynaa insha Allah taala. dhowr habeen oo Nairobi joognay, talooyinku nagu badnaayeen, habeenna aan soo guureynay xalay hurdadu qarba nagu ahayd, intaaba wallahi rafaad iyo dhibaato aan ku jirnay. alxamdulillah maanta laakiin waan ka nasanaynaa inaanu aad baan ugu faraxsanahay inay noo gudantay maanta insha Allah taala. marka hore ilaahay baynu ku mahadinaynaa, marka xigana waxaan mahad ballaaran aan u fidinaynaa walaalaha iyaga ee Somaliland oo u soo gurmad u soo sameeyeen sidii ay walaalahood oo tabaalaysan oo abaarahay iyo wixii la midka iyo dawlad la'aantii iyo dhibaatooyinka badan intay ku habsatay haatanna ku qaxooti xariyaha Dadaab iyo deegaankii waddanka Kenya oo Soomaalida deganeed iyagana ay maaragtay abaar xun ee hadda ay ku jiraan. kaalmada ay inoo keeneen baan aad iyo aad ugu mahadinaynaa. si kastaba ha ahaatee waxaa maalinba maalinta ka dambaysa ku soo kordhaya xeryaha qaxoonti Soomaaliyeed oo ka soo gudbaya soodinta u dhaxaysa waddanka Kenya iyo Soomaaliya, iyadoo dadka aad la kulmaysa aad ku argaysid diif, gaajo iyo xanuunno kala duwan, iyagoo aan haysan waxaba yaraatee daryeel caafimaad ah iyo cunto ku filan. Cali Ismaaciil Cali, Home Cable TV, xerada qaxoontiga Ifo.